waxaan maanta arkayna weligay maarag magaalada la yidhaaho Kumburlibaax waa la galay markii la galayna 3 gaari ku soo duulay ciidanka galayna waa fara badnaa waa la qabtay 17 tibi baaris baa lagu sameeyay oo ka cad waxa ku dhintay nin ilaahay markii hore waa la naaday nuqulun baa ku dhintay ninkii 17 baa loo qabtay waa ku cadaaday jeelkay ku jireen siday jeelka ugu jireen yaa anagaan ogeyn qoladii ninku ka dhintay aanaan ogeyn ee jeelkii laga siitaa dabeedna waxaan u tagnay barasaabkii baan u tagnay waanu dadkii sidee loo sii daayay dilka sameeyay gacan ku dhiiglaha dabeedna wixii orda wax dila waligii barasaabka wax dila lama arag anaga sii dayn wax dila horto sidaas aanu aragnay waxaanu waligii aragnay ma waxaanu leenahay dawladdu waxa ka qabato cadaalad la wado 17 baa la soo qabto cadaalad la wado wasiirka arrimaha gudaha waxa ka qabto wasiirka iyo maxkamaddu waxa ka qabteen wixii dambi halka kale cadaalad la wado heshiis la galay ma jiro makala kala qaatay ma jiro guddi baa marka shay guddiina waxbay xukutay guddigiina lama yeelin alla yeelo ninkiina raggiina la soo qabto hal la wado kiiska siduu ahaan jiray loo wado rag fara badan oo xasuuq ugu tala galay magaalada wixii jooga inay xasuuqaan ayaa ku soo duulay xasuuqii ilaah weyna waaxid kaaba ilaa wax dilay bilaadanku wax ma dilay nin baa ku dhintay sidii loogu tala galayna may noqon talo tii ilaahay waxay noqotay inay qofkaas uu ku dhinto haddii uu dhintayna 17 iyo 3 gaari baa u xidhnaa wax ka heshiiyey oo isaga yimi oo 2 beelood oo 2 qaran oo qarankii soo duulay iyo qarankii ninkoodu dhintay waxay ka heshiis ay kala qorteen oo ku kala qaateen ma jirin waxay guddi dhex gashay oo magac ku dhex gashay ayaa waxay xukuntay 150 halaad iyo 20 kun oo xaal go'aankii ay guddidaasi yeedhisay ee la qaatay ma dhaqan gelin bishii ku 8 ahayd bay wax dhaqan galay ma ahayn waayo dee nimankii la xukumay waxba ma keenin waxna ma bixin anagu ilaa wax sugaanahay nabadna waanu ku dhaaranay waa ku ballan qaadnay anagoo sidaa ku sugayna ya 17 nin iyo 3 gaari ba wada laga qaado barasaabkaan u tagnay waxaanu arrintaas way dhacday waa sidii wuxuu yiri arrintu kaloora galay jeelka oo salaajigeed baan ku siideen karoolu ma kaligood uu galay mise jeelkaba waa galay iyo gobolkaba maxaa maxaabiistii kale kii u xidhnaa qoonta yar baa ku jira oo shubmaaya oo aan laga daweyn 17 gacan ku dhiiglana oo dal laga qaad haddii aanu wada hadalay oo nidhi namay qancinna hadda ordo wax dila buu ordo dagaalama wax laayay 5 bilood ba iyo 6 bilood baanu idin haynay nimankii maxaa wax u dili weyday ayuu nagu yiri madaxweyne adaa keenay haddaan madaxweynaha aad tahay Somaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Silaanyo adaa soo magacaabay dee barasaabka aduu dee ka amar qaadanaya adigu dee wakiilkaaga yahay gobolka adiga keeno digtirtadaadu ku yimi waxaanu ku sheegaynaa ninkii caynka ahaa inuu anagiiba yidhi ordo laayade oo wax laaya tilaas canood ka dhacdo kalun buu wadi annana maanu yeelina waanu sugaynaa welin nabadii iyo waxqabadkii dawladda ayaanu sugaynaa guddida nabadgelyada waa bilayska waa jeelka waa maayirka waa barasaabka wuxuuba waa ku saxaxan ay wada qoreen ee ay ku sii daayeen nimanka iyo ninka kusimaha racfaanka kusimaha maxkamadda racfaanka oo aan kiiskuba gaadhin oo shaqaba ku lahayn oo aan
xeer ilaalin ka gudbin oo aan gobolka ka gudbin ayuu sii daayey waxaanu leenahay waa arrin shaxaysan waa arrin gobolka madaxda joogtaa ay ka siman tahay waxaanu leenahay hadday jananka bilayska tahay iyo hadday jananka jeelasha tahay iyo hadday madaxweynaha tahay iyo hadday wasiirka daakhiliga tahay iyo hadday wasiirka cadaaladda tahay intaba waxaanu u sheegaynaa iyo Soomaaliland oo dhan iyo wasaaradaha oo dhan inaanu caynkaasi ay dhacday labadii beeloodna la leeyahay islaayi waxaan u sheegayaa dadka Burco degan iyo dawladda iyo ummadda halkan in laga galay waxaan dadka lagu sameeyay waxaan naga galay dadka dawladdu 5 nin ee nabadgeliyada waxa weeye waana la dilay markiina la dilay 17 nin baa la soo xidhay 17 nin oo maadara yaa la soo xidhay 17kii nin markii la xidhay guddi baa u baxday arintii guddi reer ah oo la maqlaya guddi reer ah baa u baxday guddidii waxay nagu xukuntay 150 guddidii waxay nagu xukuntay 20 kun oo xaala loo xukuntay aanan ogolayn nalagu khasbay waanu qaadanay waanu yeelay dawladdiina way ogolaatay sheekadii halka mareysay ee bishan imika dhamaatay kowdeeda in la bixiyo magti ahayd yaa bisha kowdeedii 17kii gacan ku dhigle la sii daayay maqola lagu sii daayay ma waxa lagu sii daayay meena muraad baa sii daayay ma waxa sii daayay barasaabka dawladda sii daysay barasaabka ninka jeelka haysta dawladda hoose nin taliya qaybta militariga 5 nin baa sii daayay 5 nin markay sii daayeen markaan u tagnay nimankii in la sii daayay maxkamadda sii daysay meel laga sii daayay masiilaan yaa saamaxay ma dawladda saamaxday ma madaxweynaha saamaxay imikana waxaan leenahay dhibaatada Burco ay nimankaas ka wadaan ama gumur libaax ka wadaan ama waxay wadaan dadka isku dhufanayaan marka hore waxa weeye dagaalkii wuxuu yiri miyuu dhamaaday dagaal hadda wax ku taraysan ku tar waxa weeye anagu horta hal ma yeelayno nimankii oo maqan wax magaan qaadanayna ma jirto nimankii gacan ku dhiiglayaasha ahaa oo suuqa maraya un baanu ku warhelnay xaq iyo xaal wax allaale waxaanu kala qaadanay ma jirto waan iyo annaga oo dilan oo haddii rabbi xugmaayo duulimaad ku dhacay ayaanu weliba taslaax iyo wanaag iyo nabadgelyo aanu wadne sidan imika waxa weeyaan dee way tolantado waa isxiniyo taabasho waxa weeyaan dee reer baa shaqaynayo dee waxa weeyaan halkana waa ka guuraysa marka arrinku annana waa sidii hore dee cidina noogu soo hagaagi mayso nimanka la leeyahay way soo daayeen nimanka guddida nabadgelyada ee gobolka baa la leeyahay halkan bay ku qorayiin maxamuud cali saleemaan waa gudoomiyaha gobolka waayahay maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad ayirka waayahay gaashaanle dhexe cabdi cali xayd taliyaha qaybta booliska gobolka afar gaashaanle dhexe xayd cismaan maxamuud taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka qaranka gaashaanle dhexe ibraahim caydiid faarax taliyaha 5 nin weeyaan ayaa ku saxeexan shuban baan ku soo daynay baa dee haddii rabbi xugmaayo nimankii gacan ku dhuglayaasha ahaa dee halkan un ka muuqata wax kale iyo reer wax kale oo haddii rabbi xugmaayo loo adeegsado oo sharciya oo dukumiintiya oo haddii rabbi xugmaayo heshiisa oo ma jirto markaa waxaanu leenahay dee cadaalad darrada halkaa ka dhacday waxaanu u diraynaa baan u diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu u diraynaa wasiirka arrimaha gudaha waxaanu u diraynaa wasiirka amniga wasiir dawlaha amniga waxaanu u diraynaa maxkamadda sare ee gobolka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cid kasta oo ay khusayso cadaalad darrada dee waxa laga qabtaanu leenahay wixii halkaa ka yimaadana dee maanta halkan waxaanu kaga hadlaynaa arrinta foolsha xun ee ka dhacday gobolka Burco waa waxaan hara u dhici jirin weeye wax uguba weeye adduunka wali lama arag gacan ku dhiigle aan cidi ka heshiin oo mag laga qaadan
oo aan cidi ka heshin oo la iska sii daayo oo aan cidi saamixin oo la iska sii daayo maanta ka hor wali lama arag gumur libaax arrintii ka dhacday boqolkii ciidanka ahaa iyo saddexdii gaadhi ee galay iyagoo aan gashi ku lahayn oo godob ku lahayn oo wax alaale waxay ku leeyihiin aanay jirin intay galeen xasuuqii ay ka geysan lahayn ilaahay ninka qura ku dilay xasuuqii ay ka geysteen ninka ilaahay ninka qura ka dhigay ee uu ku dilay waxaanu maanta halkaa ka leenahay dadka markii hore loo soo qabtay ee loo soo xidhay arrintaasi dhowr iyo 30 qof buu ahaa sidii marba loo sii daynayay waxa laga soo reebay 17 nin iyo 3 gaari oo kala bixi waayay oo gacan ku dhiglayaalaha oo dilkii ninka qabay iyagu markii ooda laga qaaday 17kii u dambeeyay markii ooda laga qaaday ciidda sii daysay laba qaybood bay ahayd waxay ahayd halkan warqad baa taala warqadda waxa ku qoran shanta nabadgelyada oo ay lambar kow ka yihiin barasaabka iyo maayirka burco eeda horena wax badan oo eeda oo horena uu ka galay maayirku uu ka galay arrinta gumur libaax waxaanu leenahay eedeeda labaadna waxa iska leh maxkamadda rafcaanka ninka la yiraahdo Garowe oo aan kiiskuba gaadhin kiisku ma dhaafin maxkamadda gobolka ma dhaafin rafcaanka uma gudbin uu ninka Garowe la yiraahdo ee maanta jooga rafcaanka jooga 3 nin oo uu sii daayay oo gacan ku dhiglayaasha kamida ayaa warqadan ku taala 12 kale soo 12na waxa sii daayay shaar qabiil ku sii daayay 12 kalena waxa sii daayay oo taliyaha xabsiga gobol taliyaha xabsiga burco Axmed Geelle ayaa sii daayay waxaanu leenahay waxaasi wax aqliga gal maaha waxaan u sheegaynaa madaxweynaha iyo cidii kasta arrintaas ay khusayso wasiirka arrimaha gudaha wasiirka cadaaladda amniga madaxweynaha laamaha dawladda oo dhan waxaan u sheegaynaa waxaasi inaan horta anagu maanta halka ay maraysa ay meel aad u xunay tahay anagu waxaanu nahay dadkii gacanta ku dhacday la dilay ee dilka loo geystay baanu nahay nabadgelyaanu sidaa u haynay nabadgelyo ayaanu sidaa u haynay maanta markii la sii daayay gacan ku dhiglayaashii raggooda la dilay dee nabadoodii farahay ka baxaysaa ma haynayno nalagu halayn kari maayo annaga maanta taa maanta nalagu halayn kari maayo waxaanu leenahay dawladda u sheegaynaa oo madaxweynaha gaarsiinaynaa in arrinkaa siduu yahay wax looga qabto waxaan ka mid ahay dhibana waxaan ka hadlayaa oo dawladda u sheegaya madaxda u sheegay wax annaga maanta farayaga ka baxay hadday dhacdo annagu eed ku barihin intii hore nabadaanu fara ku haynaa annagu fara nabadaanu ku hayn maanta haddaanu dhibaninahay farayaga way ka baxday nala kuma hadleeyo nabadgelyadii ragga ooda ka qaaday baa qaba waxaanu leenahay oo aan madaxda leeyahay oo dawladda leeyahay si degdega waxa looga qabto beeli dhexdooda hadda way isu diyaar